بسم الله الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ولا لها شرفت له وحان كسو دويننا دار الهجرة إسلي نيروبي oon u faa'iideyneyno waxyaalahan dadka dhibo oo xanuunadan jinka isha iyo sixirka marka kilibka koobaad ayaan horan u duubnay intii ilaahay u qadaray way aragtay kilibka labaad insha Allah ayaan maanta duubi doonaa hadduu ilaahay qadaro waxaan ka hadli doonaa jinka calaamadaha lagu garto maxay yihiin calaamada koobaad lagu garto jinka waxaa weeye jidh xanuun jidhka oo kabubyo leh jirka ayaad kabubyo ka dareemaysaa waa calaamada koobaad oo lagu garanayo maaragtay qofkan jidhkiisa inuu jin ku jiro calaamada labaad waxaa weeye naxdin iyo cabsi aad u badan buu qofka dareemaya haddaad isku aragto inaad aada u naxayso oo waxaad ka naxay aadan garanaynin haddana aada naxayso cabsi fara badan aad dareemayso jin ayaa ama ku taabtay ama jirkaada ku jiro calaamada saddexaad waxaa weeye soo noqnoqoshada dilanka uurka 3 bilood iyo ka hoose halkan waxaa weeye calaamadan waxaa weeye gabdhaha walaalaha markay uur qaadaan uurka xalaashan ka hadlayna insha Allah laga bilaabo habeenka uurkooda ilmaha galay ilaa 4 bilood laga gaarayo shaadiintu way qaribaan ilmaha way ka soo ridaan ilmaha marka gabdhaha laga soo daadiya oo laga soo xaaqa qaar kalena laga soo daadiya marka dhibka waxa keenayo waa shayaatiin ama jin calaamada afraad waxaa weeye luga barar ayuu qofka isku arkaya lugaha ayaa bararay mar haddaad isku aragto in lugaha ku bararayaan jirkaada jin ayaa taabtay ama jin ayaa ku jiro calaamada shanaad waxaa weeye caajis tiro badan ayuu qofka dareemaya oo qofkii sariirta kama kacayo markuu wax qabso is yiraahdo wax akhriso is yiraahdo wax diyaarso is yiraahdo shaqo aad is yiraahdo ma kici karo culays iyo caajis fara badan buu dareemaya calaamada lixaad waxaa weeye cunto yaran ayuu qofka dareemaya oo cuntadii dhadhankeedii iyo abiteedkii iyo cuntadii rabitaankeeda ka dhumaya qofka marka cuntada hadduu cuno xataa asaga oo isqasbayo ayuu cunayaa oo cuntadii dhadhan iyo abiteed aan dareemin calaamada toddobaad waxaa weeye qofkii murugo iyo walbahaar iyo qalaq fara badan buu dareemaya toddobada calaamo waa haddaad isku aragto laba qaab unbaad xanuunkaas jirkaada u taabanaya inuu jinku taabtay ama jirkaada uu ku jiro wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu